أبو عويري قريق سكتك هوينا وحيتري بارو اسكدا بارون وحيتري خمرق اسكدا لكن مالين waxaa dhacayso adduunyada oo dhan ay dhahan adduunya sakatak codka dhigihiina ku soo dhacaya waa uu yar yahay qof aan aqoon u aflaamta xiiseeyo wadana biya buuxsho wallahi dhulkana dooga buuxsho laakiin qalbigayga adaa buuxino aniga ma xaaskaygan la hadlooyo fu'aad maxamed sheekhay wuxuu kaalimo hore kaga jira dadka ugu caansan turjumada aflaamta hindiga oo ay Soomaalidu aad u daawato marka malaga gacanta la qabsado la cararo laakiin taa macnaheedu ma malagii dhabta ma macna malaga macna dadku waa laga baqamo malaga waa naftu ka qaadamta macna nolosha wax khatarta laga wada waxyaabaha khatarta aad gacanta ka qabsato aad la cararto nolosha waxay macaan leedahay saaxiibow marka malaga gacanta ka qabatay ala orodid haye fu'aad sanadkii 1996 ayuu bilaabay turjumada filimada wuxuuna ka mid ahaa asaasayaashii studio Alfaki oo in muddo ahaa isha kaliya ee laga daawado aflaamta hindiga ah 96 waxay ahayd shirkadii hore lagu soo caanbaxay qof walba oo shirkadaas oo hal eray ka dhiibtay maanta magaciisa dunidoo dhan macnaa ku shaacay Usmaan ayaa joogay أحمد خورا جوجي أنا الله مستعان دي الله يرحم الدير يا جوجي الله يرحم أجكسان اللي جوجي أنجيري أنا اللي جوجي إيكرا أنا اللي جوجي مصلح يران اللي جوجي ويتربدي حصل هيك أنا اللي جوجي الله يرحمه كدي مصطفى قولنا إنه يمد أو أحمد صادق عم يشكى مخنين أو أنت سو عمر إنه إيمان لما نيجا مرول يقول حرنا إلى دوب جري ما شاء الله وابدنا والمسوق قبلها إسكبدها برضه codkooda iyo qulucdooda way islahaayeen kaaga yad soo dhaafaysaa okay aniga wiilkaas kama murjinayo lagamana yaabo inaan ka murjiyo midda kale waxaa jira filmaan badan oo halkan lagu soo koobi karin oo erayo midka kale ka sii macaan badan kuwana waa erayo oo iska hor imaada kuwana waa erayo oo jacayl ah kuwa waa erayo daadis ah marka mar waxaa jir filim u dhahay daruur la'aan roob ma yimaado dabeel la'aan warqad ma duusho dabeel la'aan xaanshi ma duusho daruur la'aan roob ma yimaado fal aan la hubinna shifaa kuma dhaqaaqo والله فيلم اكشن هدي له هذا اللي معاهم كجرو اتشوا درا اجرو فيلمان بدا اجرو شاروخان فيلم دي ساجر كالهونا هو اجرو قيليو اجرو سني دول اجرو سونل شيتي اجرو دريروبا اولون تقدلاعنا وبدين ولا سؤال ما هذا كو سو بخان ساسو ما قيل كران wuxuu markaan ka sheekeynayaa farqiga u dhaxeeya turjumada filimadii hore iyo kuwa hadda la sameeyo هلا صعبيه برافو قال حبيبتي مع انت هذا تيش جبل اسكو مدها ما اسكو سو دوين كرو فيلمان هوري جبل لمد اهاين شن قف ديس لي جوجت او شن قف فيلم اسكو مد دودا حدا هدلاين هل قف كميدا هدو قف اري ودها هدو قف ولغو سو علنا شنتا سو قفو لكن هذا كمبيوتر سو baxay ninba gudaha loo furaa aniga inaan ku iloobo lagama yaabo tirshadu dhaha adigana kaama ogolaanaya inaad iloodid awoodda jacaylka la isticmaala kuwa qaarna waxay u isticmaalaan awood xooga jacayl xoog laguma dhacsado qalbiga lagu dhacsadaa wanaaga lagu dhacsadaa waxyaabo badanaa jiro oo saameynaya oo
si fiican qofku saameynaya qofka markaas soo mar waa meel qaar waxa laga yaabaa qofka noloshiisa dhibaatooyin badan inuu soo marin ama wax laakiin film hal film dhowr filmna fiirsay inta sano marka meel noloshaada way ka taabanay wallahi aniga filmada aan hore u turjumo dhan waan jeclaa kuwa haddana kuwa qarbeen kuma sheegay kuwa hore hadda ilaa hadda ku raaxaysta kuwa haddana waa fiirsadaa ويشدي يعني يقول أنت نجوا هالعريا بين أصلا إيش ذا تبون فور ماي أرتو حاجرو الفيلم هذا الفيلم هذا الصعود لبا إري هندي مركو قادله إنجليش وقادله أما فيلم حارك هل إري هندي وقادله أنت قال إنجليش أنا إنجليش اسكو مف يعني فيلمات hadda English oo badiyeen like filmada hore clear oo waxa af Hindiya labada eray oo English oo hadal suuqeeda ku hadli jireen laakiin hadda horumar la gaaray caalamka dadka dhan way kala yaaceen kuwa Yurub ay ku soo dhasheen kuwa aktarada tirishooyinka kuwa Yurub ka yimaada jiro marka English waxa si filmada oo badiyeen marka wax caqabad aan kala kulmo ma jiro filmaanta aan hore alfiga ugu duubi jiray Jaafar Maxamed Asal TV Muqdisho